waxay ugu dhawaaq fiican tahay qofka ayaga ka dhiganayaan horjoogi. Jooji inaad raaligeliso naftaada. Ka bax dheriga jiljileeca leh ee u sheegaya qof walba inaad murugsan tahay. Isku day inaad dadka ka dhigato inay ku muujiyaan xishmad, kalgacal iyo bandhigidaada naxariistaada. Haddii aad weligaa aragto qof ku jira nolosha meel sareysa oo hotel 6 ama 7 dabaq leh oo noloshu dhammaystiran tahay, ha ka maseerin, maxaa yeelay wuxuu ka soo shaqeeyay dadaal dheeri ah si uu u helo noloshaas. Cidna wax xoolo uma dhiibin. Fadhiga ka kac. Ku toosi riyadaada. Ciyaarta adduunka ee shaqaysiga waa xili tagitaan. waa waqtigii aad ka faa'iideysan lahayd marinka iyo ilaha dhaqaale aad ka haysato dalkaaga iyo bulshadaada. dhibaato ayaad ku haysaa noloshaada, adiga aad dhibaato ku qabo masiirkaaga. wax ka qabso dalkaaga hooyo, haddaad rabto waa inaad heshaa aqoonsigaaga. cudurdaarka badan ma ahayn anshax. beenta nolosha sidee loo joojiyaa? beenta waxaad ku joojinaysaa runtii waxaad haysataa waqti. waxaad leedahay xirfad, waxaad leedahay aqoon iyo taageerid iyo rabitaan iyo edeb aad ku hesho nolol. miraha wax kastoo wanaagsan nolosha ayaa ugu bilaabma tartan. wax walba waa qadiimi oo qiimo leh. kuma imaanayso oo kuma dhacayso dhibaato, mana noqonayso wax sidaas ah. waxay ahayd wax fudud oo had iyo jeer waxay noqonaysaa waxaan caadi ahayn. haddii wax aad rabto waa inaad hesho. kani waa fikradaadi, kani waa dadaalkaadi, kani waa shakhsiyadaadi, kani waa waqtigaadi, kani waa meeshaadi, kani waa muhiimadaadi. beri ma aha wax la yidhaahdo berito, maanta oo keliya ayaan helnay. waa riyadaada. haddaad ku helayso kor u qaad. weli waad haysataa shaqo aad qabato. adigu waaye waxaad qabato waay. engal garoonka kubadda kolayga ama ku sii jir garoomadaas. waana xilligii burburka gurigaaga.